kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay booqashada madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya uu maanta ku tagayo magaalada Baydhabo xog laga helay heshiis culus oo ay kala saxiixan doonaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed xilli ay niyadda u degtay lafta gareen oo ka cabsi qabay in xilka laga tuuro Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo warar culus ku qaaday xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Rooble kadib markii uu shaaciyay in gargaar ka yimid dawladda Qatar uu ku xayiran yahay magaalada Muqdisho xilli uu dareebaaq degdeg ah dawladda Turkiga oo meesha ka saartay walwal uu qabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii ay ku dhawaaqday taageero cusub oo ka duwan tii ay siin jirtay dawladdii madaxweyne Farmaajo qodobada kale waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Dani oo maanta dib ugu laabanaya maamulkiisa iyo afar caqabadood oo waaweyn oo uu wajahayo Siciid Dani haddaba miyuu ku qasbanaan doonaa in uu la heshiiyo ku-xigeenkiisa Karaash iyo taliyaha nidaamka talaad oo sameeyay magacaabistiisii ugu horeysay qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana talaado 31 bisha shanaad ee May sanada 2022 barnaamijkan si shargareeya oo la sii wadaaga saaxiibadiina kale ee kugu jira baraha bulshada aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin aynu ku bilowno wararkeena madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku wajahan magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta talaadaha ayaa waxaa la filayaa in safarkiisii ugu horeysay uu ugu ambabaxo tan iyo markii la doortay 15kii bishan May madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed shalay waxaa magaalada Baydhabo gaaray wafdi hordhac oo safarka madaxweynaha oo uu hogaaminayo agaasimaha guud ee madaxtooyada Xuseen Sheekh Maxamuud ayna qayb ka yihiin xildhibaano ka tirsan golaha shacabka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta markii uu tago magaalada Baydhabo waxaa isaga iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ay xariga ka jari doonaan dib u dhis lagu sameeyay xarunta madaxtooyada ee uu ku shaqeeyo maamulka Koonfur Galbeed sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda ugu sareysa maamulka Koonfur Galbeed saraakiisha ciidamada dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa magaalada Baydhabo si weyn looga dareemayaa qabanqaabada soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha Soomaaliya waxaana markaasi goobaha qaar lagu dhajiyay sawiradiisa waa safarkii ugu horeeyay ee Xasan Sheekh Maxamuud uu magaalada Muqdisho markaasi kaga baxo tan iyo markii la doortay waxaana sidoo kale la filayaa in uu markaasi tago maamulada kale ee dalka ka jira dhinaca kale xogo la helay ayaa waxay sheegayaan in markaasi Lafta Gareen iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay markaasi wada gaari doonaan heshiis weyn oo ku saabsan sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen sidoo kalena meesha looga saari lahaa walwalka uu qabo hogaamiyaha Koonfur Galbeed ee Lafta Gareen ee ku saabsan in markaasi uu ka cabsi qabo in daaqada laga saaro ama xilkiisa uu waayo waxaa magaalada ku jirtay in xubnihii markaasi taageersanaa madaxweyne Farmaajo ee xilka ka degay markaasi la bartilmaameedsan doono si gaar ah madaxda maamul goboleedyada oo markaasi iyaguna la sheegay inay raaci doonaan madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse arintaas ayaa meesha laga saari doonaa maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu ka cabsi qabo in Koonfur Galbeed haddii uu markaasi fawdo ka kiciyo in baarlamaanka markaasi caqabad uu kala kulmi doono maadaama xubno badan oo Koonfur Galbeed ah ay uli taageersan yihiin Lafta Gareen taasina ay markaasi dib ku noqon karto madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wararka ku soo kordhay safarka madaxweynaha ee maanta waan eegi doonaa balse markaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa warar culus ku qaaday xukuumadda ra'iisul wasaare Rooble isagoo oo soo bandhigay gargaar ka yimid dawladda Qatar oo markaasi xayiran ergeyga arrimaha bani'aadanimada ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa soo bandhigay warbixin ku saabsan xaaladda abaareed ee dalka ka jirta isagoo sheegay in abaartu ay saameysay 6 milyan iyo 200 oo qof oo ku kala nool gobolada dalka 50 maalmood ee ka badan waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadda ku xayiran mucaawino ay dawladda Qatar keentay lama yaqaan sababta ay u xayiran tahay waa in la fasaxo mucaawinooyinka ee dadka loo keenay qaramada midoobay waxa ay igu markaasi wargelisay in gargaarka ay keenaan ay dib badan ka maraan in dekada laga soo dejiyo deeq-bixiyaashu waxa ay ka cabanayaan in caqabado badan ay jiraan oo dadka markaasi baahan aysan u fududeyn in ay markaasi gargaar gaarsiiyaan ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo aad u xanaaqsan isla markaana toos u weerarayay xukuumadda Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu sheegay in 8% uu markaasi dhan yahay gargaarka la helay si dadka Soomaaliyeed loogu gurmado taas oo ka dhigan in 1 bilyan iyo 400 oo kun ay dalbadeen hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay hadda markaasi laga hayo 58 milyan oo dollar
sidoo kale ergeygan ayaa sheegay in shaqadiisu aysan ahayn in mucaawino uu markaasi ka qaybiyo gobolada dalka, balse xafiiskiisu uu ku shaqo leeyahay qiimeynta heerka baahida ee jirta iyo galaangalka caalamka oo aan looga maarmayn gurmashada dadka ay abaaruhu markaasi saameeyeen sida uu tilmaamay. wasiirro ka tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare Roble ayaa lagu eedeynayaa inay markaasi iyagu wadaan wax isdabamarin iyo in ay markaasi si hoose lacago uga qaataan gargaarka la keenayo Soomaaliya. qaybaha hore ee wararkeena ayaad weli la socotaan. markaana dowladda Turkiga aynu eegno oo ballanqaad u sameysay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud, safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya oo kulan la qaatay markaasi xubno sarsare oo ka tirsan dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ballan qaaday in dowladdiisu ay si weyn ula shaqeyn doonto dowladda cusub Xasan Sheekh Maxamuud. Turkiga ayaa la sheegayay in markaasi uu hoos u dhigi doono taageeradii uu siin jiray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, si gaar ah markii uu xafiiska joogay madaxweyne Farmaajo Raade. waxaase hadda safiirkan Turkiga uu sheegay in markaasi ay Soomaaliya ka caawin doonaan arrimihii markaasi ay markii hore ka caawin jireen sida caafimaadka, tababarada ciidamada iyo weliba sidoo kale waxbarashada. sidoo kale safiirkan oo kulan la qaatay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay door muhiim ah ka qaadan doonto samata bixinta malaayiinta qof ee abaaruhu ay saameeyeen. kulanka danjiraha iyo ergeyga gaarka ah ayaa qaybka kulamo kala duwan oo maalmihii u dambeeyey waday ergeygan, kaas oo looga hadlayay xaaladda abaareed ee dalka iyo sidii ay dalalka beesha caalamka uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka markaasi loo sameynayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay saameysay. hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya ayaad la socotaan Warqad TV-na oo aad naga daawanaysaan. haatanna aynu eegno madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa waxa uu markaasi maanta dib ugu laabanayaa magaalada Garowe ee maamulka Puntland. Siciid Deni ayaa wajahaya caqabado waaweyn oo markaasi ka haysta dhinaca Puntland oo ugu horeyso khilaafka kala dhaxeeya isaga iyo weliba sidoo kale ku-xigeenkiisa. sidoo kale waxa uu khilaaf ka haystaa dhinaca markaasi isimada iyo sidoo kale arrimaha ciidamada. haddaba warar soo baxaya waxay sheegayaan in Deni uu ku qasban yahay inuu la heshiiyo Karaash, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in heshiis hordhaca la gaaray. warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynaha Puntland Deni iyo ku-xigeenkiisa Karaash ay ka heshiiyeen khilaafkii u dhexeeyay muddooyinkii lasoo dhaafay, kaas oo la xiriiray awoodda dhinaca maamulka ah. siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah isimada Puntland ayaa la sheegay inay door weyn ka qaateen xalinta khilaafka madaxda ugu sarreysa Puntland, kuwaas oo uu ku dhameeyey wadahadal dhinaca khadka telefoonka ah, sida ay sheegeen dad markaasi xogogaala oo ku sugan Garowe. madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii uu magaalada Muqdisho kaga qayb galay tartankii doorashada madaxweynaha, ayaa la filayaa in uu maanta dib ugu soo laabto magaalada Garowe, waxaana soo dhaweyntiisa qayb ka noqon doona madaxweyne ku-xigeenka Puntland Karaash oo arrimihiisa la xaliyey. khilaafka u dhexeeyay madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa salka ku hayay dhanka awoodda maamulka kadib markii madaxweyne Deni uu soo aaday Muqdisho iskuna sharaxay xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana Axmed Karaash uu ku dhawaaqay in uu yahay madaxweynaha Puntland isaga oo sameeyey xilka qaadis iyo weliba sidoo kale magacaabis. arrintaas oo uu markaa si weyn kaga hor yimid ninka la yiraahdo Siciid Cabdulaahi Deni, madaxweynaha maamulka Puntland. ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa taliyaha hay-adda nabad sugidda ee gobolka Banaadir waxa uu u magacaabay Muxyidiin Warbac Shadoor. sarkaalka la magacaabay ayaa muddo dheer ka tirsanaa hay-adda, lehna khibrad dheer oo dhinaca amniga ah, waxaana horey u magacaabay ninkan agaasimihii markaasi kumeelgaarka ahaa Nisa Bashiir Goobe, balse uu shaqeyn waayey khilaaf u dhexeeyey Farmaajo iyo weliba sidoo kale Roble dartiis. xilka taliyaha hay-adda nabad sugidda gobolka Banaadir ayaa waxaa horey u ahaa Yaasiin Farey oo sidoo kale si kumeelgaara u hayay xilka agaasimaha guud ee Nisa, kaas oo markaasi isagu xilka si toosa ugu wareejiyey Mahad Salaad kadib markii uu ka mid noqday xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Mahad Salaad ayaa waxa uu wadaa isbeddel markaasi uu ku sameynayo hay-adda markaasi Nisa, isagoo durbaba magacii ka bedelay islamarkaana meeshii national ahayd ku bedelay federaal.
qodobkaas ayaa ugu dambeeyey warkeena tan iyo warkaan war la mid ah intaanu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.